waxaan ku suganahay magaalada Minneapolis. baabuurtan arkaysaan waxay qayb ka yihiin oo qayb ka qaadanayaan sidii ay u damin lahaayeen goobihii ganacsi ee la gubay. xalay meelahan dhan aad baa loo gubay, dhibaato xooggan ayaa soo gaartay. ganacsiyo fara badan oo magaaladan ah ayaa la boobay, la bilaqaystay, dhib weyn la gaarsiiyey. dadka Soomaaliyeed qayb ayay ka yihiin dadka magaalada bilicdooda soo celinaya ee nadaafadda magaalada ka shaqeynaya. waxaa indhahey ku soo arkay gabdho badan oo Soomaaliyeed iyo wiilal badan oo Soomaaliyeed oo xaaqin wata, magaalada xaaqaya, bilicdii magaalada ka shaqeynaya oo soo celinaya. halkan waa la jabsaday, kadib waa la dhisay, haddana waa la sii jebiyey. haddii aad arki kartaan inkastoo ay guban tahay, gudaha dhan waa la gubay, waxba kuma harin. laakiin ooryo aad u xooggan ayaa ka soo baxaya, sanka lama gelin karo. magaalada Minneapolis meelo ka mid ah sidaas ayaa u dambeysay. magaaladan toddobaadkii hore waxay ahayd magaalo camiran, qurux badan, ganacsi ka kala socda, social distance la ilaalinayo, dad badan ka dukaamaysanaya. baabuurtan waxay ahayn baabuur heegan ku jirta, xarumahooda ku sugan. laakiin maanta waxaad moodaa in baabuurtani magaalada Minneapolis dabdamiska yaalla ay u baahan yihiin caawinaad dheeraad ah oo ay la hadlayaan magaalooyin kale. haddii waxaan artay baabuur kale oo laga dalbaday magaalooyin kale ee magaaladan ku hareeraysan si bilicda iyo magaalada loo soo celiyo. burbur aad u xooggan ayaa halkan ka dhacay. waxaan arkay ciidamada keedka qaranka Mareykanka oo la soo daadgureeyey. hadda ayaan u socdaa meeshii ay joogaan. waxay taagan yihiin Minnehaha iyo Lake Street, dadka magaalada Minneapolis degan. dadka aan deganayn ee na daawanayana daqiiqad kadib ayaan tegi doonaa halka ciidamada lagu soo daadiyey. hadda ma jiro banaanbax rabshado wata, walow la ii sheegay in banaanbax kale oo ballaaran uu hadda ka socdo magaalada Minneapolis downtownkeeda, faras magaalaha magaalada Minneapolis. halkan waa Wells Fargo, waa xaruntii bangigii. meelaha dhibka uu soo gaaray ayuu ka mid yahay. wariyaasha iyo sawir qaadayaasha aad bay u mashquulsan yihiin. waxay sawiranayaan sawirro aysan qaadin in muddo ah amba intii ay noolaayeen. sababtoo ah dalka Mareykanka wuxuu ahaa dal nabad ah oo burbur iyo dhibaato sidan oo kale aysan arkin. sanadihii ugu dambeeyey aan ku noolana waddankan anigu maan arkin, mana filanaynin in dalka Mareykanka gaar ahaan magaaladani ay sidaa noqonayso. sababta magaaladan ay sidaan u noqotana waxaa lagu sheegay kadib markii nin madow ah oo ka soo jeeda qowmiyadda madow ee Mareykanka lagu dilay magaaladan. 4 nin ee boolis ah ay ka qayb qaateen dilkiisa, si fool xunna loo dilay, qoorta jilibka laga saaray. waxaa idiin muuqda ciidamada keedka qaranka ee Mareykanka ayaa halkan idinkaga muuqda. waa ciidamadii la soo daadgureeyey. tira ahaan waxaa la ii sheegay ilaa 500 oo ciidamo ah oo dheeraad ah in magaalada Minneapolis lagu soo daadgureeyey. waa laga yaabaa inay ka badan yihiin, waa suuragal. ciidamadii booliska ahaa ee magaalada Minneapolis ilaalinaya amniga iyo nidaamka iyo kala dambeynta, markii ay la tacaali waayeen wixii jiray ayaa waxaa bedelay ciidamadan. maanta ma arkaysid ciidan boolis ah oo waddooyinka taagan. ciidamadan waa ciidamada keedka qaranka Mareykanka
inta badan lama arko, laakiin waxaa la soo bixiyaa mararka ay dhibaatadan oo kale ay dhacdo. waa ciidamo u tababaran, khalabeysan, dhagax kasta iyo wax kastoo la tuuro aan waxba ka dhibeenin. waa ciidamo adkeysi badan, ka adkeysi badan booliska, tababar aad u xooggan la siiyey. hadda aad bay u degan yihiin. waxay isku dayayaan inay magaalada ay dejiyaan, buuq ma wadaan. dadka careysanna si degan ayay ula hadlayaan. ninkaas waa muwaadin Maraykan ah, ciidanka ayuu la hadlayaa. way jiraan dad xanaaqsan, laakiin naxariista way ka muuqataa. waa uu jilba jabsaday si uu u qanciyo. gabadhana waa gabar murugeysan, ka xanaaqsan dhibkii loo geystay ninkii madowga ahaa. in muddo ah markii ay halkan fadhisay ayaa isagana wuxuu isku dayayaa inuu la fadhiisto, uu la sheekaysto. ciidamada Maraykanka way ka buuxaan kuwa bini'aadanimada wax ka yaqaana oo bil'aadan ah, aad bay ugu buuxaan. sidoo kale way jiraan ciidamo cunsuri ah. meeshaan daqiiqad ka hor cidna ma taagnayn, laakiin hadda waad arkaysaa la soo buuxsamay. sababtuna waxay tahay dadku aad bay u jecel yihiin dadka naxariista badan, isla markaana aad bay u necab yihiin dadka naxariista daran. dadka mudaaharaadaya waxaa u badan caddaan, sidoo kale madow. bulshada kale ee laga tirada badan yahayna sidoo kale way joogaan, way mudaaharaadayaan. soomaalidu aad bay ugu badan yihiin, gaar ahaan soomaalida. dumarkii soomaalida ayaa ii muuqda si nabad ah oo sharaf iyo karaamo ku jirta ayay u bannaanbaxayaan. sidoo kale bilicda magaalada ay ka qayb qaadanayaan. hadda gabadhaana kale way xanaaqsan tahay. Play us like some fucking goofies. We know what the fuck y'all did. We know what y'all do. Let's not get on y'all. Y'all some raping motherfuckers for how long? Let's not get on y'all. Cause I've been treated everybody up in this motherfucker. This shit is serious. Our ancestors put in too much work for us not to be out here doing this. If we sit back and be quiet, what justice do we get? When we tried to tell them, they didn't listen. So now y'all see how it had to be. sidoo kale dadka nadaafadda ay ka qayb qaadanayaan. waana la mudaaharaadayaa, waana la nadiifinayaa. wuxuu leeyahay shaqadooda ay wataan dadkan, qalad maysan gelin. wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in la xiray mid ka mid ah askartii falka geysatay oo xabsiga loo taxaabay. laakiin bulshada Maraykanka gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Minneapolis waxay dalbanayaan in la soo wada xiro afartoodaba. way qaacinaysaa.
You gonna help the refuse? Get a broom. Help us to clean. Help us to clean the city. way qaacinaysaa We don't need your weapons in here. Get to work. Get to work with us. I call upon your humanity. Even when it's ma garan karo waxay qaacinayso you have the option. You have a brother, ma fahmi karo laakiin a mother. You say you do. What are you? Are you humans? Huh? What are you gonna do? Put your weapons down. That's what you need to do. We don't need your weapons in the city. Get a broom. Ernestina. Listen, let's go. waxaan ku suganahay Hiawatha iyo Lake Street waa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waa meeshii ay ka bilaabatay mudaharaadka dhismahaasi idin muuqda oo aad u fogeen waa saldhiggii saddexaad ee booliska Minneapolis oo ay ka shaqaynayeen 40 nin ee dilka geysatay saldhiggaasi maanta waa la gubay dhulka ayaa lala simay shalay haddii aad arkaysa ciidamo boolis ah oo magaalada Minneapolis ka tirsan oo halkan taagan isla markaana aan hubaysnayn maanta taasi wax ka beddelan ayaa halkan idinkaga muuqata waa ciidamada keedka qaranka Maraykanka tiradan waa tiro hordhaca baabuurtan aad arkaysaan ma ahin baabuur aan dhowaanahan aan arkay ama dadka magaalada ay arkeen qoryahana ma ahin qoryo dhowaan la arkay laakiin How many people said they couldn't breathe and they dead? We all go through the same thing. laakiin markii ay xaaladda faraha ka baxday oo shalay ilaa iyo xalay ilaa habeen hore boob fara badan oo magaalada ka dhacay dukaamada la bilaqaystay goobaha ganacsi la gubay ayaa guddoomiyaha gobolka Minnesota wuxuu dalbaday ciidamadan si ammaanka magaalada loo sugo sumcadda gobolka loo ilaaliyo xadgudub intaan ka badanna si aan loo geysan banaanbaxaadda halkan ka socda mid ka ballaaran ayaa la ii sheegayaa inuu hadda ka socdo faras magaalaha Minneapolis downtown Minneapolis May 31st marks 99 years since y'all were in the court all of our black land. odagan waayeelka ah Anybody else? wuxuu ka qayb qaadanayaa mudaharaadka shucuurtiisu ayuu muujinayaa shucuurtiisa muujinaya odagan waayeelka ah Mark is up. We tired. ushiisa ayuu wataa Ain't no more black law. taasi waxay ku tusaysaa in dadka caddaanka iyo dadka madowga iyo kuwa midabka intaba ay ka siman yihiin sidii loo heli lahaa cadaaladda kuwa tirada yar ee doonaya cunsurinimada inay kula dhaqmaan dadka madow aan loo dulqaadan karin halkan waxaa iga muuqda shimbir aad u yar iyaduna mudaharaadka miyay ka qayb galaysaa mise dhaawac ayaa soo gaaray waa shimbir yar waatana waxaan u malaynayaa inay ka qayb galayso mudaharaadka waa la qabtay ninkanaa qabtay dadkan aad bay u naxariis badan yihiin shimbirtan waxaa suuragal ah in dhaawac uu soo gaaray waa la hubinayaa xaaladdeeda waa la qaadayaa isbitaal ayaa la geenayaa
waxaa la leeyahay ka warqab ayaa la leeyahay. dadka Maraykanka ah xayawaanada iyo shimbiraha aad bay u jecel yihiin. waxaan jeclaa dadkii daawanaya inaan weydiiyo horta Soomaaliya weli ma laga furay isbitaal lagu xanaaneeyo isla markaan lagu daweeyo xayawaanaadka? haddii uu ka furan yahay ii soo qora. ninkan ubax u dhigayaa ninkan yar. ubax ayaa loo dhigay. waxaa loo muujinayaa iyagu xataa in la jecel yahay. aad baan ku salaam walaal fiican tahay. dadka mudaaharaada ee Soomaaliya ayaa ka mid ah. aad baan ku salaam saaxiib. bal maanta shucuurtaada ka waran. haye magaaladeena caadi uga soo maalmahan marka kulleeto aan wixii aan witness ka noqonay waxan bay ahaayeen aan dhibaatada oo sidii soo gaartay wax u waayay ayadana amiin waad mahadsan tahay. kaas wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo isagana shucuurtiisa muujinaya banaanbaxan ka soo qayb galay si nabad ah banaanbaxa uga qayb qaadanaya. Getting ready for a riot. ciidamo kale dheeraada la keenay. ciidamo extra ah.
ciidamo ekstara ayaa imaaday kuwii saacad ka hore joogay ka badan. waayo halkan aan u soo noqon doonaa barnaamij aad u ballaaran ayaa laga sheegayaa in uu ka socdo magaalada Minneapolis. barnaamijkaas fas magaalaha Minneapolis ayuu ka socdaa, waa downtown Minneapolis. goobtan waxay ahayd goob ganacsi aad u weyn oo ballaaran. waxay noqotay meel la jabsaday, meel la bilaqaysto iyo meel la gubo. dadku baaskeyda ayay ku imaanayaan. sharci ma jiro maanta. baabuurtii one way ayay ku kala firinayaan. baabuurtu one way ayay ku kala firinayaan. maalmaha soo socda dadka dhismaha ku shaqada leh suuqooda wuxuu noqon doonaa mid xaami ah. ganacsiyada la burburiyey, la boobay waxay ku jiraan caymis ama insurance. inkastoo qofna uusan jeclayn in ganacsigiisii uu dhib soo gaaro, haddana dhibaato aad u xooggan kama imaan doonto. dib ayay u heli doonaa xaquuqdooda. magaaladu saan bay u qaacaysaa. goobahan waa goobo la gubay, isla markaana la bilaqaystay. halkan waa moolasha bannaanka, albaabada bannaanka ku yaalla. waxaa laga dhigay dukum daakum, waxba laguma reebin. dhinacaas dee aadin kuga aadiyey kaamerada. gurigaas dhulka ayaa la dhigay, waa la gubay. dhismahaas oo arkaysaan. halkan waa magaalada Minneapolis. maanta oo kale toddobaadkii hore baakinadan baabuur ayaa buuxday. aad bay u adkaan jirtay meel aad gaariga dhigato, laakiin maanta xaaladda sidaasi way ka duwan tahay. magaalada la dhiso oo dib loo dhiso waqti badan ayay qaadan doontaa. in ganacsiyada magaalada dib loo soo celiyo waqti badan ayay qaadan doontaa, iyadoo markii hore jiray coronavirus, xanuunkaasi oo curyaamiyey ganacsiyadii iyo socodkii dadka. ayaa haddana markii ay waxaan dhaceen waxaa aad u adkaan doonta nolosha magaalada inay si caadi ah ku soo noqoto. inkastoo la hilmaamay xanuunka coronavirus, hadda aad moodo dadku inaysan xasuusanba social distancing amba 6dii tallaabo ee la kala fogaa. hadda taasi waxaa beddeshay in gacmaha la isqabsado. ilaa iyo hadda ayaa bilaqada socotaa. ilaa iyo hadda ayaa wax la bilaqaysanayaa. ilaa iyo hadda
wad arkaysaan ganacsigii isagoo la boobay ayaa ilaa hadda lagu dhex jiraa birilaqada ma ahayn mid joogsatay labadan gaari ayaa ka mid ah gawaarida la gubay labadan gaari ayaa la gubay tana waa hooyo Soomaaliyeed ilaaha barakeeyo labadan gaari